kilibkan maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo wax yar, taasoo sidee isku aamini kartaa Soomaalida. Sidee ayaan isku aamini karnaa, ama Soomaalida isku aamini kartaa, ama sidee iskugu kalsoonaan kartaa. Sidee Soomaalida iskugu kalsoonaan kartaa. Barnaamijkaas ayaan rabaa maanta inaan wax yar ka hadlo, anagoona ku dheeraanaynin, rabana qof walba iyo fikirkiisa iyo sida ay adiga kula muuqato inaad ka dhahdo ama fikirkaaga aad ka dhiibato. daqiiqada kadib soo laabanana. Okay, haga tagin. Okay, isku soo noqosho wanaagsan asxaabey. barnaamijkii aan rabnaa inaan hore u sii socono anagoona isku dheereynaynin, waqtigana uu nahayo, galabna ay tahay, howlo fara badan na sugayaan. Marka waxaa rabaa in qof walbo san hore inkugu sheegay fikirkiisa ka dhiibto. Maanta waa talo isweydaarsi, wax kale ma ahan. taladaasoo sidee Soomaalidu isku aamini kartaa, ama sidee Soomaalidu iskugu kalsoonaan kartaa. Waanu ognahay xilligan la joogo waa xilligii ugu adkaa in lais aamino ama laisku kalsoonaado. Ifan laba isqabta Allaha ka dhige, way adag tahay in laisku kalsoonaado. sidaas si lamid marka sidee marka mujtamacu isku aamini karaa. awoowayaasheena sidee ahaayeen? ma dad is aaminayay ahaayeen, ma dad aan is aaminaynin? ma faqrigaa laisku aamini la-yahay, ma waxaysigaa laisku aamini la-yahay, ma aqoontaa laisku aamini la-yahay, ma jaahilnimaa laisku aamini la-yahay, ma isfaham daraa jirto, xakee kabtu ka go-an tahay. anigu siday ila tahay intaasba awoowayaasheen waa haysatay. awoowayaasheen jaahilnimo waa haysatay, aqoon darina waa haysatay, faqiirnimona waa haysatay, qanina way ahaayeen. waxaa kale iyo ansoo-un iyo waxyaabo kaloo badan. noloshuna intaan way ka adkeed. ayadoo xitaa qofkii kaa jiro qaarad ka qaarad, hadda waxaad kula xiriiri kartaa intuu sakin iskala xiriiri kartaa. sidaas awgeedii awoowayaasheenii qofkii xataa meel 5 kilometer u jirta xitaa dee si ay ku gaarta ma lahayn, hantana way wada xiriiri jireen. noloshuna intaan waa ka adkeed. noloshuna intaan weliba way kasii adkeed. hadda wax waliba waa easy. inaad wax barato waa easy, inaad shaqaysato waa easy, inaad wax walba samaysato waa easy. adigoo qolkaada ka bixin, adoo 4 mitir ka bixin waa easy. saacitaan hadda lisma aaminayo. sababtana waa garan la'ahay. sababta yaa ilaa hadda maskaxda ku wareeganayso. ma islaamnimadii baa xoogow nagu yar, ma jahli baa nahaayo, ma qabiil baa maskaxda naga galay, ma maxay ahayd qabyaaladii baa nagu weynaatay, ma ammaanadii. ilaa muslimku waxaa lagu yaqaanay maogtahay ammaanada inuu ilaaliyo. haddii wax baadi uu helo, inuu baadidaasi uu dadka u sheego, u dhaho baadida noocaas ahaa yaa iska leh. dadkii hore dee baadida maanta waa un lacag ama wax ka yar, ama waxaan naf lahayn. dadkii hore dad nool oo baadi xataa haday ay kusoo hirto ama ay arkaan, way si fiican bay wadada ugu hagaajin jireen ama way kiib gareyn jireen.
dee xoolana warkeed ha sheegin. Marka xaggee loo socdaa? Dhalinta dambane xaggee hiigsanayaan? Sidee la isku aamini karaa? Soomaali ma is aamini kartaa? Maxaan isku aaminaa? Maxaase isku aamin la'nahay? Bal adigu jawaabahaas, su'aalahaas jawaab u raadi bal.